waad salaamantiin daawadayaal meel kastood nagala socotaan maanta waxaanu idiin soo tabinaynaa barnaamij kooban oo ku saabsan kooxo ka kooban mas'uuliyiin sarsare oo dawladda federaalka ka tirsan hawlgal kormeera iyo taakulayna oo muddo 10 maalmood ay ka soo fuliyeen deegaanada iyo maamul magaalooyinka dalka haddaba waxaa la qabtay kulan ay kooxuhu ku soo jeedinayaan waxyaalaha ay kul soo arkeen ama ay kala soo kulmeen hawlgalka kormeerka iyo taakulaynta ee 10 maalmood ay ku soo sameeyeen deegaanada kala duwan iyo maamul magaalooyinka kulankan waxaa hadal ku furay mudane aadan faarax madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo ahna madaxa xarunta dhexe ee xisbiga barwaaqo wuxuuna yidhi የፌደራል ከፍተኛ አመራሮች የክትትልና ድጋፍ ቡድኖች ለ10 ቀናት በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ተሰማርተው የሰሩትን ስራ በክትትልና ድጋፉ የታዩ ዋና ጉዳዮችና ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ ለመወያየት የተዘጋጀ ነው kulankan waxaa loo qabtay si loo wadaago arrimaha ugu waaweyn ee kooxuhu ay ku soo arkeen hawlgalladodaasi iyo jihooyinka xiga ee la qaadi doono arrimaha hawlgalkan kormeerka iyo taakulaynta diiradda lagu saaray waxay yihiin 3 arrimood tan koobaad waxay tahay dawladda federaalka gaar ahaan fikir curinta ka timid dhinaca ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ee sharafta mudan ee uu ku soo jeediyay arrimaha leh waxtarka sareeya ee wadan ahaaneed waxaana ka mid ah hawlaha diiradda la saaray dhaxalka cagaaran qaabka loo fuliyay iyo dadaalka socda barnaamijka dhaqo ee dheefso heerka uu marayo iyo dadaalka qaybtaas iyada ka socda dheefta jiilka loo gudbinayo waxbarashada jiilka xiga loo gudbinayo taasoo ay ku jiraan dayactirka iyo dib u cusboonaysiinta dugsiyada waxbarashada lagu samaynayo iyo waliba dhammaystiridda qalabyada waxbarashada iyo hawlaha kale la xiriira ee kor loogu qaadayo hawlaha barisbarasho tan labaad waxay tahay hawlaha ay dabeecadooda iyo fulintoodu ay xilli roobaadka ku xidhan tahay sida hawlaha beerfarashada ee xilli roobaadka shaqooyinka tabarucaadka ee xilli roobaadka la fulinayo tan saddexaad waa hawlaha lagu fulinayo iskaashiga iyo isku xidhnaanshaha ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo kuwa deegaanada iyo waliba maamul magaalooyinka waa shaqooyinka dhaqdhaqaaqa la samaynayo ee ku xidhan dhaqdhaqaaqa la fulinayo ee laga maarmaanka ah waxaana kuwan ka mid ah kor u qaadidda hawlaha dhoofinta waa waxyaalaha kala duwan ee dibadaha loo dirayo abuuridda fursadaha shaqooyinka dhimidda sicir bararka qiimayaasha ee culayska weyn dadweynaha saaray wanaajinta dakhli ururinta kubcinta awoodda maaraynta iyo abuuridda iyo dedejinta arrimaha la xidhiidha dib u habaynta lagu samaynayo xoogagga amniga ujeeddada dabagalkan iyo taakulayntan waxay tahay si loo ogaado heerka fulinta iyo hawl walba masha ay marayso iyo si loo ballaadhiyo arrimaha waxqabashadoodu wanaagsan tahay ee ku dayashada mudan si loo daboolo galdaloolada ka jira dhinaca fahanka iyo fulinta gaar ahaan sidii barnaamijyada cusub faham buuxa loogu yeelan lahaa kadib dhinaca dhaqangelintoodana loogu gudbi lahaa in la abuuro wada shaqayn iyo iskaashi xooggan oo dhex mara dawladda federaalka iyo deegaanada iyo weliba dawladda federaalka iyo maamul magaalooyinka markaa kooxahan hawlgalka ayaa shaqooyinkooda si midho dhala uga soo fuliyey deegaanada iyo maamul magaalooyinka ay ka hawlgaleen waxayna kooxuhu jawaab celin siiyeen natiijooyinka ay la kulmeen iyo waxa uga soo baxay kormeerka iyo taakulaynta ay sameeyeen waxayna jawaab celintaasi siiyeen kooxaha kala duwan ee arrintu ay qusayso inkastoo ay kooxuhu warbixintooda waxqabadka qoraal ahaan ku soo gudbiyeen haddana masraxan maanta waxaannu diiradda saaraynaa arrimaha ugu waaweyn ee ka wada dhexeeya waxaana loo soo jeedinayaa warbixintaasi kooban oo noocan noqonaysa daawadayaal kooxahan ay mas'uuliyiinta sarsare ku jiraan ee soo arkay hawlaha ka socda deegaanada iyo labada maamul magaalooyin ayay koox waliba hal xubin oo ka tirsan kooxdaasi uu soo jeediyey warbixin kooban oo ku saabsan deegaanka ama maamul magaalada ay ka hawlgaleen waxay kala kulmeen iyo natiijada kormeerkoodaasi ka soo baxday iyo weliba taageerooyinka ay bixiyeen waxa loo sheegay meelaha galdalooladu ka jiraan ee wax ka qabashada u baahan iyo arrimaha u baahan in dadaal dheeraada laga sameeyo bal markana aynu eegno warbixinta ay kulankani ka soo jeedisay kooxda kormeerka iyo taakulaynta ka fulisay deegaanka Soomaalida waxa warbixintan soo jeediyey Dr. Habtamu Itafa ከዚህ ሲሄድ ቲሙ 9 አባላት ነበረን አባላቱ የክልሉ ካቢኔ ጋር ስብሰባ አድርገናል የአንድ ቀን ከዛ በኋላ ክልሉ ላይ ተወካይ የሚሆኑ ዞኖችን መለየት ስራ ሰርተናል ማለት ነው አንደኛው በሃም ዞን ጀራር ዞን እና ሸበሌ ዞን
እና በውስጣቸው ባሉ ወረዳዎች ከተሞችም በዛው ደረጃ ለማየት ሞክረናል። دكتور هابتسامو waxa uu sheegay in kooxdu ay shir hal maalin socday la yeelatay golaha kabineetka dawladda deegaanka Soomaalida kahor intayna hawlgalkeeda bilaabin. Wuxuu sheegay in ay soo arkeen gobolada Faafan, Jarar iyo Shabeelle iyo degmooyinka iyo magaalooyinka goboladaasi hoos yimaada. Wuxuu yidhi heer deegaan waxaa jira dhalinyaro ay tiradoodu dhan tahay 365,985 oo wiilal iyo gabdhaba isugu jira oo abaabulan. dhalinyaradani waxay ka qayb qaataan shaqooyin kala duwan. dhalinyaradani waxay qabtaan shaqooyin badan oo la xiriira beerista geedaha, waxayna hawlo kala duwan ka wadaan 11 gobol iyo magaalooyinka deegaanku ka kooban yahay ee deegaanka hoos yimaada. waxay ku hawlan yihiin shaqooyin ay ka mid yihiin ku deeqidda dhiigga iyo shaqooyin kale oo kala duwan. dhammaan meelaha aynu soo marnay waxaanu ku soo aragnay shaqooyin midho dhala oo natiijooyinkoodu muuqdaan. arrinta weyn ee kuwa kalena u noqon karta khibrad lagu dayan karo oo laga faa'iidaysan karo waxay tahay arrimaha qurbajoogta. qurbajoogtani ka qayb qaadasho ballaaran ayay ku sameeyaan hawlaha kala duwan ee deegaanka ka jira. waxay noo sheegeen tiro gaaraysa 500 oo kun oo qurbajoog ee deegaanka u dhalatay inay deegaanka dib u soo noqdeen oo hawlo kala duwan fuliyaan. arrimaha xusida mudan ammaanta ballaaranna mudan waxay tahay dadaalka dhinaca dhaqashada digaaga ee aan soo aragnay iyo weliba hooyooyinka iyo dhalinyarada adhiga la siinayo si ay u dhaqdaan iyo weliba hawlaha la bilaabay ee dhaqashada shinnida. waxaa kaloo iyaduna xusid mudan dadaalka loogu jiro in daaradaha guryaha la degan yahay khudaarta kala duwan lagu beero iyo dadaalka laga muujinayo in dhulbeereed yar wax soo saar ballaaran laga helo. waxaanu soo aragnay degmada Awbare oo dhulbeereed ballaaran leh. dhulbeereedkaasna waxaa loo adeegsanayaa habka mechanizationka ee mashiinada kala duwan ee beerfalashadan lagu fuliyo. waxaa kaloo goobtaasi laga isticmaalaa oonu soo aragnay habka clusterka ama beerleyda wax soo saarka isku midka ah soo saaraya oo iskaashanaya. waxaa kaloo iyaduna dadaal weyn oo xusid mudana dowladda deegaanka oo deyn ku siinaysa cagaf-cagafka hawlaha beeraha loo adeegsado oo beerleyda siinaysa. waxaa kaloo jirta in beerleydu iskood ama rabitaankooda habkan isurursashada ama clusterka ay dhul isku bixisa u beertaan. waxaa kaloo iyaduna jirta oo la yaab leh habka ama beerashada qamadida oo hadda koor deegaankan looga baranin oo si ballaaran looga fulinayo degmada Awbare. ta kalen soo aragnay waxay tahay dadaalka dhinaca waraabka ee loo adeegsanayo webi Shabeelle. waxaanu webigaasi ku soo aragnay bambooyinka biyaha soo jiida oo meelo kala duwan lagu rakibay. laakiin mashan waxaan doonayaa inaan sheego in arrinta taxadarka u baahan ee in loo fiirsado u baahan ay tahay marka waraabka la samaynayo carrada oo cusbadu soo dhexgelayso ama carrada cusboobaysa. taana waa in laga taxadaro. ta kale een talada u soo jeedinaya waxay tahay oon soo aragnay habka beerashada iniyaha abuurka kala duwan oo saydhida ku salaysan oon la adeegsanaynin habka xariiqa loogu beerayo. waxaa loo baahan yahay in arrintaasna wax laga bedelo. waxaa kaloo la kulannay baahi ka jirta dhinaca iniyaha abuurka ee la wanaajiyey, gaar ahaanna iniyaha abuurka ee babayga iyo risoortiga Karamarra oo bilow wanaagsan aan ku soo aragnay. hawsha ururinta dakhliyada oo iyaduna mid xoogana. waxaa kaloo soo aragnay in maalqabeennada deegaanka Soomaalidu ay dadaal sarreeyo ugu jiraan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen hawlo kala duwan. waxaa jirta in deegaanku si ballaaran u bixinayo shatiyada maalgelinta ee cusub. arrinta kale waxay tahay dadaalka loogu jiro abuuridda fursadaha shaqooyinka. taana dadaal sarreeya ayaa ka muuqda. tusaale ahaan magaalada Jigjiga waxaanu ku soo aragnay oo ka jira xarumo kala duwan oo suuqa. waxaa suuqyadaasna lagu iibiyaa badeecada aasaasiga ah. waxaana ka qayb qaata dhalinyaro tiro badan leh oo fursado shaqooyin ka helay. waxaa kaloo jirta in qiimaha sixirka ama badeecadaha kala duwan xilli walba uu taagan yahay Facebooka lagu wadaago. dhinaca arrinta ku saabsan dayactirka iyo dib u cusboonaysiinta dugsiyada waxbarashada lagu samaynayo oo hawlo waaweyn ay ka socdaan. markaan u soo noqono dhinaca qurbajoogta deegaankaasi Soomaalida waxay kaalin sarreysa ku leeyihiin dadaalka dhinaca waxbarashada ee deegaanka ka jira iyo hawlo kale oo ballaaran. arrinta kale waa tan ku saabsan dhaxalgalka cagaaran. xilli roobaadkan aynu ku jirro waxaa deegaanka Soomaalidu diyaariyey 11 milyan oo geedaha la beerayo oo la beeray. arrintaasna waa mid xusin mudan iyo dadaal ballaaran. ilaa imika waxaa la beeray 65 milyan oo geedo.
markaa waxaannu soo aragnay in qorshe dejin keliya ayna ahayn qorshayaasha la dejiyey ay dowladdu deegaanku si wanaagsan u fulinayso oo laga midho dhalinayo daawadayaal kadib markay kooxuhu warbixintoodaasi kooban ay kaga hadleen arrimaha ay la kulmeen ay ku soo arkeen deegaanada iyo maamul magaalada ay soo booqdeen ay ka howlgaleen ay ka fuliyeen kormeerka iyo taakulaynta iyo xalka waxaa noqon kara iyo tallaabooyinka xallinta dhibaatooyinka kala duwan ay qaadeen ay soo jeediyeen waxaa loo gudbay afkaarta kala duwan ay soo jeediyeen mas-uuliyiinta kulankaasi ka qayb qaadatay ተልኮው በእቅዱ መሰረት ነው የተፈጸመው ስራው የተመራበት አግባብም ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ ሁሉም ቡድኖች የተሟላ ዝግጅት አድርገው ነው ወደ ስራ የገቡት እንደየክልሉ ከተማ አስተዳደሩ ሁኔታም የስራ ክፍፍሉ kadibna kulankaasi waxaa hadal muhiima ku soo xidhay mudane aadan faarax madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo ahna madaxa xarunta dhexe ee xisbiga barwaaqo hadallada uu ku soo xidhayna waxaa ka mid ahaa oo uu ku bilaabay sidan soo socota habka hawsha loo bilaabay loona fuliyey wuxuu ahaa mid qorshaysan marka laga soo bilaabo diyaargarowgii ugu horreeyey ee hordhac ahaa dhammaan kooxuhu waxay sameeyeen diyaargarow buuxa saas ayayna ku howlgaleen qaabka howlaha looga fuliyey deegaanada iyo maamul magaalooyinka waxay ahaayeen kuwo wanaagsan taasina waxay naga caawisay inaannu wakhtiga iyaga sida habboon ugaga faa'iidaysanno isku duwayaasha iyo hogaamiyaasha kooxuhu waxay hawsha u maareeyeen una fuliyeen si xambaarsan rabitaan iyo niyad sarraysa waxaa la sameeyey dadaal lagu fulinayey dhammaan howlaha checklistiga lagu muujiyey waxaa la sameeyey dadaal wax looga qabanayo gabdaloolada kormeerkaas iyo howlgalkaasi taakulaynta lagula kulmay waxaa kaloo kooxuhu ay wax ka qabteen xataa dhibaatooyinka ka baxsan qorshaha la dejiyey wuxuuna sheegay mudane aadan faarax in kormeerku uu ahaa mid lagu gaadhay ujeeddadii laga lahaa khibrad wanaagsanna laga helay waxtar sarreeyana u leh gaadhitaanka barwaaqada la hiigsanayo waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan intii iska xil saartay masiibadii dabka ee ku dhacday shacabka ganacsatada yaryar ee masaakiinta u badnayd ee Taiwan-ta jijiga oo tan iyo intii dhibaatadu ay dhacday heliya hooba lala garab taagnaa laakiin dhab ahaan weli ayna gacanteennii gaadhin sidii loo baahnaa intii ka shaqaynaysay oo guddiga maanta halkan yabaha waday ay ka mid yihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloo u mahadnaqayaa dhammaan qurba joogta meel walba ay joogto dareenkooda muujiyey muddo kooban abaabul sameeyey maaragtay dhaqaalihii loo baahnaa wixii tabartooda ahayd bilaabay inay ururiyaan waxaan muran ku jirin in dhaqaalaha loo baahan yahay uunan ahayn midka halkan caawa aan ku ururinay iyo mid u dhow qiyaasta aan isleenahay dadkaas in maaragtay lagu caawiyo wixii meeshay ka jireen dib loo dhiso sidii la soo saaray waa lacag gaadhaysa 1.5 bilyan oo bir ku dhawaada qorshe wuxuu ahaa magaalada jijiga iyo dadka deegaanka in ugu yaraan 300 milyan waxaan ka yarayn laga ururiyo